nebigu markaa intuu saa u qabtay buu wuxuu leeyahay waryaa iga iibsanaya buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man yashtari hada alcabdi buu nebigu yidhi war addoonkan yaa iga gadanaya buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam isagoo la kaftamaya addoonkan yaa iga gadanaya zaahir baa markaa hadlaya wuxuu leeyahy yaa rasuula allahi idan wallahi tajidunii kaasida ilaahay baan ku dhaartay ilaahay rasuulkiisiiyo haddaad igadda buu yidhi kaasidku yacni waxa weeyaan waan kugu fadhiisanaya maxaa tidhahdaan tijaaradu markay kaa socon weydo suuq loo waayo aniga cidinay gadan maysa buu leeyahy ninkayga zaahir ah cidi kaa gadan maysa ilaahay rasuulkiisiiyo waa igu baaraysaa ama waa igu fadhiisanaysaa بسم الله الرحمن الرحيم ولا الكسو دبو كانال كسعود البلشو برنامج كني هديو كعجبي لايك شير يسبسكرايبك وحقينا فكر كيغانا وإنو مهم إنو غريب كومنتيغا سياد إنو ديري جريسيد waxaa jiray saxaabi la yidhaahdo zaahir bin alxaraam nin reer miyiya buu ahaa waa ashjaciya qabiilada khatafaan la yidhahdo ka mid ah waxaa nin baadiya markuu ka yimaado nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay yidhahdaan markuu u yimaado had iyo goor ama turfuu sheegi jiray turfadu waa wax nebiga farax geliya oo ka warramo hadyadna wuu keeni jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam uu baadiya uga keeno waxaanu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka uu ninkaasi baadiya ka yimaadee magaalada yimaado hadhow markuu anbabaxayo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu anbabixin jiray wixii uu magaalada kaga baxayo ayuu siin jiray markaa si awgeed buu nebigu wuxuu lahaa ina zaahiran baadiyatuna wanaxnu xaadiruuh zaahir waa reer miyiga iyaga annaguna magaalo jooggiisii baanu nahy yacni isna waa ninka baadiye noo jooga dhaqanku wuxuu iska ahaan jiray dadka baadiyo hadiyadday keenaan subag iyo caano iyo xoolo iyo wixii la mid ah hadhow markay magaalada ka baxayaanna dhar iyo kaba iyo wixii la mida in la siiyo maalin maalma ka miduu yimi zaahir muuqaalkiisa marka la eego waxaa la yidhaahdaa nin foolxun buu ahaa dabeetana magaaladuu yimi isagoo suuqii wax lagu kala iibsanaya joogo oo wax gadaya iibinaya ayuu nebigu xagga dambe kaga yimi calayhi salaatu wasalaam dabeetana isagoo aan arkayn buu dhabarka kaga yimi oo saa u qabtay ma arka zaahir ciddan dhabarka ka timee qabatay man haada arsilnii buu yidhi war waa kuma isii daa buu leeyahy kadibna markuu jalleecay wuxuu arkay inuu nebi maxamed yahay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu isku nabay nebigu markaa intuu saa u qabtay buu wuxuu leeyahay waryaa iga iibsanaya buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam man yashtari hada alcabdi buu nebigu yidhi war addoonkan yaa iga gadanaya buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam isagoo la kaftamaya addoonkan yaa iga gadanaya zaahir baa markaa hadlaya wuxuu leeyahy yaa rasuula allahi idan wallahi tajidunii kaasida ilaahay baan ku dhaartay ilaahay rasuulkiisiiyo haddaad igadda buu yidhi kaasidku yacni waxa weeyaan waan kugu fadhiisanaya maxaa tidhahdaan tijaaradu markay kaa socon weydo suuq loo waayo aniga cidinay gadan maysa buu leeyahy ninkayga zaahir ah cidi kaa gadan maysa ilaahay rasuulkiisiiyo waa igu baaraysaa ama waa igu fadhiisanaysaa ama ma layga kaa gadanaya buu leeyahy nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam lakin cinda allahi lasta bikaasid ama anta cinda allahi qaal xadiidku shamaa'il almuxamadiya buu ku yaallaa waana xadiis saxiixa say culammadu sheegeen wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay agtiisa mid baariyaya ama mid aan gadmaynin kama tihid buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam hadday bini aadamku muuqaalkaaga u arkaan inaad gadmaynin lasta bikaasidin cinda allahi buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam idan quruxdu iyo jamaalka iyo muuqaalkan sare alle agtiisa waxa qiimaha kule maaha saynu u kala qurux badannahay ilaahay uguma kala dhowin saynu u kala cadnahay uguma kala dhowin ilaahay agtiisa wax kala qiimo ka leh sida ogeed baa xadiidkii imaamu muslim uu warinayay wuxuu nebigu leeyahy ruba ashcaha madfuucin bilabwaab low aqsama cala allahi laa abara wuxuu
النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام رب للتقليل أو للتكثير رب أشعث لا أركمد بصاصيسا تمهي سيوحي ساني فردنين أما شان ليسنين وبصاصيسا ومدفوع بالأبواب نبولي الباب دا أن لغفرين يعني مسكين أما كان ليلهدو أنا هين دادك الله هش لي الباب الله فره أنا هين لكن هدنا النبي محمد محمد المامي عليه الصلاة والسلام لو أقسم على الله إلا أبره هدو إلهي كدارتو إلهي وأرمينيا هدو إلى والله ساسا نقنيسا سيدي وأرتبا إلهي وأرمينيا يعني النبي محمد المامي عليه الصلاة والسلام مركاه waxa idinku wax ku qiimeynaysan dadka ku qadarinaysan inaanu ahayn alla agtiisa wax lagu qadarinaya saawgeed midaydan idinku albaabka ka furaynin oo muuqaalkiisa sare aanu ahayn muuqaal dadku ay soo dhaweeyaan ayaa haddana ilaahay agtiisa wuxuu ka gaarsiisay maqaamka hadduu alle ku dhaarto in ilaahay subxaanahu wa tacaala dhaartiisa uu rumaynayo يعني waxay leeyahay mujtamacii muslimka ahaa markii uu ku dhacay cultural revolution waxay wax ku qiimeynayeen siday wax u arkayeen iyo maadada iyo adduunku qiimuhu la lahaa markuu isbedelay ay noqdeen wax kale waxa bini aadamka lagu qiimeeyaa lagu kala horumariyaa ee dadku ku baratamayaan markaas bay sameeyeen xadaara aan dunida soo marin xadaaraan dad kala sarreeya lahayn oo aan isxaqiraynin oo aan quruxda iyo midabka sare qiimo ka joogin saawgeed isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam masaa'ilkaasi xoojinaya xadiidka muslima kale waa ka ku tilmaamaya in allaha laa yanduru ila suwarikum walaa ila amwaalikum ilaahi subxaanahu wa tacaala ma eego muuqaalkiina sida u egtiin ama xooliinna ama waxa haysataan walakin yanduru ila quluubikum wa acmaalikum إلهي وحو يقى قلوبتنا وحا كجرة إيمانة الله كعبسية التقوى أخلاق فيعنية وحا قلبي قيدن كجرة الرميسنتين إيا وحا يدن كسوفولية أعماله وحا يدن كسوفولية عمله نوعوية هاي إيا وحا قلوبتنا كجرة كاسبار ربي قيمة يا أبو النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام سيدا وقال وحا شرطة قصة عانة saxaaba jiray isna ragaan quruxda badnayn kamid aha waxna haysanin marka waa niman quruxna badnayn maal adduunyana lahayn markaasuu nabigu weydiiyey Julaybiib baa la yidhaha war Julaybiibow maxaad u guursan weyday oo yaa ii guurinaya buu yidhi aniga maal la malihi yani baa ka muuqada een qurux la igu raacana igama muuqato gacantaydana wax kuma jiraan yaa markaa gabadhii guurinaya nabigu calayhi salaatu wasalaam uu baxay qola ansaara buu tegey ansaartii nimankii ahaa markuu u tegay wuxuu ku yidhi yaa fulaan zawijni ibnatak waar hebelow gabadhaada isi guuri saxaabadu inta badan way jeclaayeen xididnimada nabiga calayhi salaatu wasalaam inay nabi maxamed xidhiidh la yeeshaan walidaalika baa la yidhahdaa ansaari hadday nin ansaarta ka mida gabadh u kacdo wuxuu la hamiyi jiray sidii nebigu calayhi salaatu wasalaam ugu guursan lahaa ninkanna waxaaba u yimi nebigii oo leh inantaada isiiyoo ii guuri dabeetana nicima wa nucma caynin buu yidhi يعني وأريو تلماميا شو وقفر حسين هاي وده خير وبشاري سنيو ووحي لكدوك ستابو لي نبي محمد وقبرنا قصوداني عليه الصلاة والسلام مركز النبي حكويري إني لست لنفسي أريدها أنا قم لفهي قوم الدون يبو النبي عليه الصلاة والسلام قبرنا كويدي سنيو أنا قم ما قفك قور سنيا قال فلمن بيري إلهي الرسول كيسيو هدايا دو دوني سير جيجا كاتاي قال لي جليبيب بن نبويري جليبيب بن إرجواهي مركانكي وحي ومودي وحنا هين بصابحي مركي هورا قوانك كلجي بس كقاتي
markan wuxuu leeyahay ilaahay rasuulkiisiiyo balaan islaantii la tashado arrinku hadduu Julaybiib yahay aan islaantii ku noqdo xaaskii aan u tago hooyadeedan wax weydiiya buu yidhi wuxuu tagay islaantii inanta dhashay markaas wuxuu yidhi nabi maxamed baa gabadh inaga soo doonay calayhi salaatu wasalaam iyana sidii oo kaley tidhi nicma wa nucma caynin waa wax ili ku doogsato waa badhaadhe bay tidhi haddii nabi maxamed ba inoo yimi calayhi salaatu wasalaam markaasuu yidhi lafihiisa isagu u dooni maayo qaalat faliman yuriiduha oo haddaa yuu u rabaa bay tidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam gabadha yuu u doonaya qaala lijulaybiibin julaybiib buu u rabaaba ayuu ku yidhi qaalat xalqaa lijulaybiibin xalqan haddii la yidhaahda bay yidhaahdeen waa cuna xanuun xalqa haddii la yidhaahdana bay yidhahdeen biduuni tanwiin waa xiirid waa eray u dhigma halkay soomaalidu ba'a yidhaahdaan ama ba'ayeey ama wax la mid ah yacni waa waxay aan rajaynaysay waxaan ahayn ayaa ku soo baxay se iyadu moodaysay si aan ahayn baa soo baxday laa lacamrullahi laa usawiju julaybiiba ilaahay baan ku dhaartay julaybiib anigu inantayda siin maaya bay islaantii tidhi odaygii mar hadday islaantii ka hor timi wuu kacay markuu is yidhi xaggii nebiga qaba calayhi salaatu wasalaam inantii way maqlaysaa warka dhex socda aabbaheed iyo hooyadeed ayay xagga dambe kala hadashay waxay ku tidhi waxaan idin weydiiyo yaa iga kiin soo doonay markaasaa la yidhi rasuulkii ilaahi calayhi salaatu wasalaam say tidhi atarudduuna calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi waaalih wasalam amra oo ma nebi maxamed baa hadal ku celinaysaan markaa inta nebi maxamed idiin yimi oo yidhi gabadhay siiya miyaa haddana nebigii celinaysaan bay ku tidhi aniga nebiga igu wareejiye bay tidhi waayo nebi maxamed marnaba aniga i dayici maayo ee hadiidina warka nebiga calayhi salaatu wasalaam odagii ee islaantii inantii mas'aladii waa ka furfurtay dabeetana waa aqbaleen nebigu u yimi odaygiiyo wuxuu ku yidhi sha'nuka biha fazawijha julaybiiban ilaahay rasuulkiisiiyow inantii waa ku siinay yacni julaybiib iyo ciddaa doonaysa markaasi u guuri nebigu calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka axaadiista qaarkood waxay sheegayaan inuu u duceeyey calaa kulli xaal waa la dagaal galay julaybiib gabadhii waa loo dhisay waa la siiyey dabeetana ghazawaadkii nebigu uu galayay calayhi salaatu wasalaam ghaswo ka mida buu galay dagaalka markii laga soo noqday ayuu nebigu wuxuu yidhi tafqiduuna min axad yaa inaga maqan yaa la waaye markaasaa kolba nin la sheegaa hebel lama hayo hebel waa la dilay hebel lama hayo hebel waa la dilay dadkii siduu nebigu u lahaa tafqiduuna min axadin cid ma idinka maqan tahay ayaa markii dambe la yidhi may cid ima maqna markaasuu nebigu yidhi haddaba anigaa cid baa iga maqan oo yaa maqan ilaahay rasuulkiisu wuxuuhi walaakinii afqidu julaybiiban fatlubuhu fi lqatla war anigu ninkii julaybiib ahaa baan la ahy ee bal dadka la dilay ka soo eega waa la baadi goobay waxaa la helay 7 gaaloo meydoo meel yaaliya isagiioo dhinac yaalla waxaa la yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo halkaasaan ugu tagnay 7 meydoo gaaladiina waa yaalliin isna wuu yaalla aqatala 7 uma qataluu haada minii wa ana minhu buu nebigu ku celaaliyey ma 7 dilay markaasay dileen kaasi waa iga tirsanya anna waan ka tirsanay buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam هذا مني وأنا منه روايات كقاركود وحيت الماميان إنه صدح جير كوعي العليني نبي عليه الصلاة والسلام دبت أنا والله صاق هذا نبي قعمه سوء ودقي السجا هيي أنت حباشة اللي قضى يورد النبي عليه الصلاة والسلام قعنتي سوبر كنا مركي حباشة اللورد ما يبى الله حبالي وحديث اللورد اللي شذا الشهيد كان الله ما يدين جليبيب waa nin faramaran buu ahaa nimaan qurux badnayn buu ahaa saxaabi ansaariyuu ahaa laakiin wuxuu nebigu ku qiimaynayaa maaha madaahirta maaha siduu u ekaa rajul qasiir damiim bay leeyihin laakiin qasriga iyo damiimnimada nebigu wax kuma qiimaynaynin hanti muxuu haystay
وحلي هذا مني وأنا منه كان يانو يقتر سنيهي ومن جماعتي أنا قلنا كوحدي سان كتير أبو النبي عليه الصلاة والسلام وحيت المامسة موازينتي ماشي اللي هي ميزانها هنا هين إنه النبي محمد عليه الصلاة والسلام وحقوق قيمين إنه برا الصحابة ضطن بلشد فاليوس كدين لبدلوه رقم هذه الجاهلية اللي قال يمي مقالضة إياه وحدتكو هايستان إياه سيدا اللو أجي وحقوق قيمين أنا مسلمكو وحقوق قيمين وحدتك اللو قيمة ما كرسي هذا إياه السيادة إياه منصبك إياه جاهة إنه مدحويني وزيرية هي كان هي مكاسبة النبي عليه الصلاة والسلام وميل فرديا من صامري markaasuu nin fadhiyey la fadhiyey yidhi maa ra'yuka fi hada ninka halkaa maraya muxuu kula yihi riwaayadda qaarkoodna maa taquuluuna fi hada buu yidhi ninkaa maxaa odhan lahaydeen waxay idhahdeen waa rajulun min ashraafi innaas waa dadka waayeelkiisii nin ka mid ah waa nin odayadii reerka ka mid ah intaa kumay daynine ammaan bay bilaabeen هذا والله حري بينه إن خطب أن ينكح إلهي رسولك يسيو كاسي وانين درقا لبنتي سيساركا ميدو وانين هدو قبركو ويديستلو قوريو وهدو إرقا كوغي مادي إرقا دي سلا أقبالو وهدو وركو شيغي وركي سلا دقيستبيلي وواييلك أيو كميدياي وإسكا مصي النبي عليه الصلاة والسلام عبار بركي لتشوغا متكالا صامري رسول ما رأيك في هذا كان حيد ليه أو ما تقولون في هذا واحد كان فقراء مسلمين تكشره كان ماشي مري واسكا مساكين تا مسلمين تكمدي هي دين نين هدو قبل كويديس قبل لسينا ينا ماها نين ارجع هدو كوغوي ما دير قدي سلا قبل ينا ماها نين هدو ورما وركي سلا دغيستنا ما هو إليه يعني مجتمعك زوازنكم لها النبي عليه الصلاة والسلام حبر يا الصحابة ميزانكو إنانو مقالضا نحين وحكو يلي مركا هذا خير من ملء الأرض مثل هذا كاني دولك مجيو كي هرابك خير بدني بل ميزانكو نبي صاري أرك وهلقف هلقف يقف لسما قيمين أيو كان هرا دولك مجيو كاسو ميدانا متك ما كخير بدن النبي يقول عليه الصلاة والسلام إن كان إذا كان أكتينا وحبك أهين يا لادهن وفقراء مسلمين تكمل هي عند الله كاسباب دولك مجيو كان كخير بدن النبي يقول عليه الصلاة والسلام إذا مو حديث كنت المامية موازين تناينو هي سناينا أنا وحصحة أهين لأن يراد الدم بوحيد هذان قوة iyo xoog iyo waa nin six pack oo muruqyadu dhisayin oo karabay wax ku qiimeeya waa nin feera buurnidu miyay tahay fi shariica miisaanka wax lagu qiimeeyo ilaahay qola munaafiqiin tilmaamo wuxuu yiri wa idha ra'aytum tu'jibuka ajsamuhum ba ilaahay waana munaafiqiin hadaad aragto feera buurnidooda waad la yaabay nabi ayuu alla quraanka ku tilmaamaya wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum وأن يقولوا تسمع لقولهم هذا هدلا نفس حدود يوركو دواد جيسن لكن إلهي ما قلت المامية كأنهم خشب مسندة بالليل يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قيمة دريدو دا إلهي قرآن قلت المامي سبحانه وتعالى وأنا كالنبي قلت المامية قيامها نمبورا بالكين يا أبو النبي الرجل العظيم السمين أي يوم القيامة لكينا فلا يزن عند الله جناح بعوض أبو نبي قولي إلهي أكتي سقرب كان يعمك لما ميزان نغضب على لي نكي حق ويناية آخرة لسوتاقي كان يعقرب كيد آخرة لما أها هذا الربطان آخرية بويد فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وحالة المامة عبد الله بن مسعود صحابي لورنشر أوعية العلم كمدها صحابة رجعوا علم بدنا كمدها وصحابة إيرانين قامن
وآدو دوبانو مجاير ير دبتنا نبي عليه الصلاة والسلام با عضي ودر تجد بفولي ويصير عضي نبي جوجا سوقه جيت كمركو صارا أي دودما دي سمودة دودما دوبان أيولها مركو جيت كفولي دودم كيسمو أي أركان صحابة دي أي كو غسلين نكان يسدو متشير يا مركي لا أركي أي غسلين مركز النبي وحكوا ما تضحكون ما كو غسل لسان للرجل عبد الله أثقل في الميزان من أحد النبي كويري أدين كاير عبد الله يا أركيسان آخر ميزان كبورت أحد وكعلس يهيب النبي عليه الصلاة والسلام بورت أحد يسكردن ميزان كآخرة وحكا علس أدين كايدن كوكو قص لسان أيها الأحبة إلهي مركو رجعني ماذا القرآن كقول الماميو ذكرني ماذا يا رجعني ماذا وكلا لبا أنا لبطها أيوة مسألة قال يا مسلم بدي الله بيد الدقوالي لكن رجعني ماذا الرسم جاء القرآن كو شيء من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا رجال كإلهي وحكوا الشيء إن يجين قوة كان وقوة صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلهي بلن كي يلقى لين كرون شيء تمرك لا إله إلا الله محمد رسول الله تلاهده عليه الصلاة والسلام بلن ما تقش إنه الله الرب جاي هي كل جاد عابد يسوع طريقة مريسان إنه كي نبي محمد نقول عليه الصلاة والسلام بلن كعبان قش إذا واحد وحقوقي ما ينسوا يصاد نرش أو أركيسه يدونك قيمه قليا لنا يه وحرد من إن لا إله إلا الله محمد رسول الله وسبادان إلهي وحلي فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر رجي بلن كاسفوا لي إن يجوا وضضها هيكو جريودين إن وسجيان وشت كاسي ولا حيان قصوا سأرورنا يا الحاكم في مستدركي بسند حسن يا وحلا إذا مقالة مدينة دار كمدا يا عمر فرديا جماعة من الصحابة نصوا فريستي مركز حكولي تمنوا بل خيال كينا وح تمنية متبوح ودانو وحن تمني لها دار تنمجد والذهب أين هلو واندبتنا إلهي درتي وبحيه حول بضن ودار تنمجد والذهب أين هلو لكن أنا ما في عيدة مرة بين المحي في سبيل الله وبحيه مركز هذا عمر كعلي تمنوا متكلا وحولي وحين بسيبة دي دارت المجد اللؤلؤ الزبرجد يو جواهر الغالية يعني بريشيس ستونس حنقالي دارت رايك ودا بوحده أي أنت بيني لها إلهي جتكي سووا بحيه فقال تمنوا مركز واحد هذا ده وحكلانو شاقنو قرن مينو أدون أنت أصلا كقرن عمر بوحده أنا وحن ست تمنين إياه هدأ هيري لهؤلاء الرق أبو عبيدة بن الجراح يا معاذ بن الجبل يا سالم مولى أبي حذيفة يا حذيفة ابن اليمان رقاس يوكل هدان هيري لها وأن إلهي كلمة دي سينان كورياله أنو قرقارسان لهؤلاء يعني عمر روح الرباين والصحابة داروا تلمامه ماتيريال كوينانو هين قيمة كواحد لسه دقالها السماية واحد سماية بني آدم سمالة كواحد سلام ملا هدي وفقر جالس كوكان دري هدي حول الليل هدي حول الليل أنا وسكو مرة لهينون حبي اسمه بدلين ما ها ماتيريال كواحد لسه يسا حول الله يستي يسا الله أبرسين كان معها أما روحة المامين الرجال يهين وحوحان سماية حول الرقبة دقاو السماية وما دي ضد هشة لكن دد كواليتي له هشة دد قيمة له هشة رقوا تلمامة يا أبو عبيدة بن الجراح ونكون أبو كت المامين 10 المبشرين كمدياي أما أمين هذه الأمة ومضى تنقف قوة ما نبضن وياهي وحذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والرق
ومعاذ بن جبل ونقول نبي كنت المام أعلم المسلمين بالحلال والحرام نن اللي يرابوها وحلينا قبل جيب دوري سود الشربو كلنت هذا أنا سو دوري تبنشر نو إسلام ده النبي يقول كنت المام عليه الصلاة والسلام إنه يهي أعلم مؤمنين تنيك وقوا قوم بدن لما كي مسألة حلال يا حرام شوكتو النبي كنت المام عليه الصلاة والسلام إذن رجال كوالة له أيها نرشة وحوحك بدل أبو المام يا عمر إذا وحنا نوبها نيضد إذا قال معها ضد بينوبها هني ضد كان قال صبري حنوبها هني ضد كوالة له وقوى قرآن كوشيء جياه كوا نبي محمد وكوا رمي عليه الصلاة والسلام كوا إنهم كو قيمين محي هيستان يسيدي وإيجين يمن سبكي شوغان يقبل كي كرد الشيء كو قيمين إنه إلهي أنت يوشرا سبحانه وتعالى حرير كي ربي لليين انتو لاقي نولش السيداي واركان آخر السيداي واركان أدونك السيداي واركان كاس بينو باهني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.